hogaamiyayaasha xisbiyada siyaasadda ee Somaliland ayaa maanta u ambabaxay magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaas ay kulana kula soo qaadan doonaan wadamada Somaliland ka taageera arrimaha doorashooyinka. Gudoomiyayaasha xisbiyada siyaasadda ee Somaliland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu mas'uul ka yahay dib u dhac ku yimid doorashooyinka Somaliland isagoo dhinac walba iska difaacay eedeynta uga imanaysa dhigiisa. waxaan ka xunnahay inaan ماشي أنا قولي عن كوميشن كنا عن لاباس كرينين حيل كنا للسعودية أنا نقطة سفر كي كوسو بيكم هذه أدبان وراحنا هاي لأنه وحنا فيلنا إنه على أقل لما كا بالون كوي تاجني ده أنا جو كوميشن كنا أو أرينج سداماتي بيل كي أم بامكان سايد شرعي كنا أو لا هيرجلي أنا تقنو marka labadii midna maxamed soo galin waxa ka sii darantii oo xeerkii la gudbiyay la leeyahay xeer isaan waafaqsaneen baa dhacay taasna waxay nagu imanaysaa iyada qodadeeda wajiga wax kale nagu noqonaysaa laakiin insha Allah taala waxaan jecelahay inaan iska soo galgalano horta Faysal imka waxba yar taabtay isagoo iska dhawraya waxa la dinka usha agta lagu dhuftaa lagu jeexan ma waqti wuxuu waxba habsaansan waa wajiga waxa jirtay Faysal kulmiyay xukuumadda shaqo ku wada bari waan kana xawaaniga hay door xulay waxa aad loogu diraa kulmiye doorashada habsaaminaya doorasho ma doonayo kanu daahiyay war waan soo fadhinaay war waxa nagu baaqday anaga noo sheega imika commissionka lagu rafanayo ee daahina la leeyahay wax uu daahiraya sababtiisa koobaad hal la bedelo idinka lahaa idinkoo og waqtiga oo la bedelayo la soo korinayaa inuu noqon doono daahir keenayo hal la bedelo labada xisbi ku adkaa time ka adka qiyaastay wala soo magacaabay baarlamaanka fasax galay baarlamaanka managa xukunaya wakan akhriis baarlamaanka saxii gudoomiyaha wada socodno mala gaar bay wada socdeen Faysal iyo ninka Muuse la yiraahdo arrimaha hadda jira laba qodob